reer Somaliland aan badan la idin dhigin waxaan jeclahay in yar aan iifiyo taariikhdeena cusub modern history-geena Somaliland ee laga bilaabo 1960 si ahayd baan idin sheegay wada yaqaan iyo buuqaata abdaal haysata waxaan ahaan wadankii u horeeyay ee Soomaali ku nooshay horta qaabti calanka inahan 26 June waxaan ahaan markaa dhulkeenu Ingiriisku u qaybiyay 6 district buu qaybiyay iyo 2 sub district waxa la yiraahdaa degmada ilaa meesha la ilaa Sayla sub district baheed Boorama district baheed Hargeysa district baheed Berbera district baheed Burco district baheed Laascaanood district baheed Ceergaabo district baheed meesha la asfaray sub district baheed saasaynu kala ahayn dhulkeena wala weyntuna waxay 6 gobol baheed gobolka waxa la oran jiray Majeerteeniya gobolku wuxuu oran jiray Mudug ka ku xigo waxa la Iiraan midna waxa la oran Lower Juba oo Baydhabo waa Kismaayo iyo Upper Juba oo Baydhabo saas uu ku kala ahaa Maxamed Siyaad Barre markuu wadanka qabsaday wax isku qasay wuxuu sameeyay tuulo kasta reerkoodii gobol uu ka dhigay iyo district uu ka dhigay 18 gobol uu sameeyay iyo wuxuu sameeyay 7 district uu sameeyay maanta wada aragtaayo shirba ka socday shalay Garowe ay ilaahay waa wada tashiga beeshaas oo Puntland la baxday horta waxa isku tagay halka ilaa intii xawaalaha aragteen ee marka mass graveska intii noo samaysay waa isku tago waxa uu horeeyo xaq hore fadhiyay ninkii la oran jiray hiliblihii Morgan ayaa hor fadhiyay shalayto waxay ku dhawaaqeen in dagaal Soomaaliland lagu qaado oo waxay yiraahdeen 6 gobol bay dignaan 6 gobol meel ka keenan garan maaye Majeerteeniyan ku ogaay beentoodii bay rumaysteen 6 gobol bay yiraahdeen waxay wixii dimileeyna waxa weeye nabadiina saweeye ay ka masiirsan yihiin waxba ma qabsanayaan colaad bay naftooda wax isku geeyeen xoogeen iyo wax isku geeyeen magaranaysa colaadeena ninka inoo hanjabeeyay waxa ay wasiirka dawladda maaliyadda waa reer Boosaaso ninka lahaa hala gudbooda Soomaaliland waxaana waxa uu keenay awooddaasi wuxuu helay wadan aanu magaalo aanu xaq u lahayn xukuumadda lacagteeda u reeyo Muqdisho haddaanu Muqdisho wasiirnimo ka helin oo dadkii lahaa aan ku xukuumay lacagtooda ku xumay inoo hanjabeen horta marka waxa uu darada u weyn inoo geystay waxa weeye qodobada US la oran jiray ee Soomaaliya xoreysay Maxamed Siyaad ka xoreysay ayaa midadii waxay u dhiibtay kuwii ka xoreysay u dhiibtay oo janala dhaca iyaga way la dhacayna inuu soo socdaa hadda waxaan u sheegay anigu ma nihiray US iyo SN baan nahay Somaliland baan nahay gargarada ma nahay ballan waxaan ugu qaadnay haday Garowe jooji weydo colaadeedaas ballan waxaan ugu qaadnay inaynu iska dhigna kutubta iyo waxbarashada inuu qabsano Garowe ayaa inoo baranay insha Allah taala hanjabaad bay naftiina kaga jireen mar waxay noo imanayaan magaranaysa tugaraq marna waxay noo imanayaan badan bay noo imanayaan iyo dhahar ma yimaado waa badan meesha oo yimaadaan ballan waxaanu leenahay ballan inaanu tuulooyinka iyo magaalooyinka ka dhigeen inaan dhulka sinaaman ka shan insha Allah taala shaqeyn insha Allah marka waxay yeelaysaa walaalayaal propagandaha xamar ka socda ha maqlina dalkeena waadiga aragto Djibouti wadan yar ayaa maanta caasimada oo la yiraahdo Jamhuuriyadda Djibouti maxay leeyahay Jamhuuriyadda Soomaaliya inoo diiday dalkeena in gacanta ku haysanaa cadaalad baynu keeninaa hoggaan wanaagsan baynu keeninaa insha Allah taala kitaabka Ilaahay iyo sunnada ku xukuminaa insha Allah taala kaasaynu ku arsaninaa kaasaynu qabyaalada ka taginaa kaasa cadaalada inoo wada buugan yareen gaaladu xarqada waa tuurina insha Allah taala Allahu akbar ma leena Allahu akbar insha Allah taala
مستقبل كاسالينهن هنية جمينا وكعكوفنا إن شاء الله تعالى يولكينا وقالنا إن شاء الله تعالى مستقبل كوالله وحنا همبليو إلهي عافماهنا نسيو إلهي مستقبل ونسينا نسيو إلهي دلك دلو سو هاشرها كيو مدان لقى تهريب لها كيو مدلو سو تهريبه إلهي نقيله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.